daraasad cusub oo dhanka caafimaadka maskaxda ah oo laga sameeyo guud ahaan wadamada dhaca waqooyiga Yurub ayaa muujinaysa in dadka Norwejiga ah ay yihiin kuwa ugu walaaca iyo walbahaarka badan marka loo eego dadyoga kale ee ku nool waqooyiga Yurub. Ku dhawaad kala bar dadka Norwejiga ah ayaa la kulma cadaadis taban oo waqti dheer qaata oo naftooda ku beero walbahaar iyo walaacaad u fara badan oo joogto ah, sida ay sheegtay warbixintan caafimaad ee waqooyiga Yurub laga sameeyay 2025 taa oo ay soo saartay shirkadda caymiska AIF. waxaana lagu wareystay daraasadan in ka badan 4200 oo qof kuwa oo ka kala yimid wadamada waqooyiga Yurub. daraasadan ayaa qeexday in Norway boqolkiiba 44 ku hogaaminayso, halka ay Sweden soo gashay kaalinta labaad oo haysata boqolkiiba 42. Denmark ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo haysata boqolkiiba 35, halka Finland ay noqotay wadanka ugu hooseeya marka loo eego walaaca walbahaarka iyo cudurrada maskaxda, taa oo iyaduna heshay boqolkiiba 32. warbixinta ayaa sidoo kale qeexday in dumarku ay ku badan yihiin marka loo eego ragga, oo ay walaaca iyo walbahaarka dumarka dhanka maskaxda ah kaga horeeyaan oo ay haystaan boqolkiiba 53, halka ragga uu ka haysto dhanka walaaca iyo walbahaarka ka jira boqolkiiba 34. halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayeen maanta waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaan idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.